Saacadihii ugu dambeeyay xaaladda colaadeed ee cakiran ee Kabylie ka noqotay habeen walba waxaa ku soo biiray hadallo barabagaando iyo sidoo kale jaahwareerin ah kuwaas oo qalqal ku abuuray bulshada kala taageeraysa labada dhinac iyo sidoo kale qaar ka mid ah fadhiyada ciidanka oo si weyn looga dareemay waxayna ahayd arrintaasi mid lagu tilmaamay inay tahay dagaalkii oo markan istiraatiijiyad kala yeeshay afkana lagu soo kordhiyey. Muuqaalkeennan waxaan ku dul istaagi doonaa saacadihii ugu dambeeyay hadal ay si weyn warbaahintooda iskula dhex martay Somalilan islamarkaana ku aadan xaaladda ACC ciidanka ku sugan Laascaanood magacii magaalada oo taageerayaasha Somalilan ay bedeleen iyo sidoo kale qaababka ay hadalka u dhiganayaan halkan ciidankugu soo gudbin doonaa iyo khilaafka ay soo wariyeen inuu ACC ka dhex qarxay. Muuqaalka sheer gareel la wadaag saaxiibada aragtidaadana qaybta hoose noogu reeb. Waxaan sidoo kale isla warbixintan ku dul istaagi doonaa xigashada iyo sidoo kale kurgelida dhinaca ACC aan ku sameynay iyo wararka ay soo tabiyeen ee ku aadan arrintaasi iyo jawaabta ay ka bixiyaan. Muuqaalka Lexar aan ku xasuusiyay ana ku bilowna saacadihii ugu dambeeyay iyadoo habeen walba xaaladdu ay tahay mid Kabylie dhaqdhaqaaqa ciidanku yahay mid mar walba la arkayo madaafiicdu ay tahay mid mar walba ku gororaysa ama ku hoobanaysa meelo kala duwan oo ka tirsan aagaga difaaca ha ahaato mid cabsi ahaan loo riday ama ha ahaato mid bartilmaameed gaara leh. waan joogaa mararka qaarkood ha ka dhignaato oo ha noqoto mid walba hibo uu tusayo in madficiisu uu diyaar yahay, balse saacadihii ugu dambeeyay waxaa kusoo biiray dagaal afka ah oo warbaahinta ka qarxay islamarkaana siyaabo kala duwan loo adeegsanayo. Warbaahinta dhinaceeda waxaa si weyn u baabuuninaya dhalinyaro labada dhinac waxaana si weyn saacadihii lasoo dhaafay loo baahiyey magacii Laascaanood oo mid kale lagu bedelay iyo sidoo kale xaaladda ciidanka wadajira ee ka yimid meelo kala duwan ee hiil hartay iyo sida ay u wada shaqeynayaan iyo khilaaf laga soo tabiyey. Haddii aan ku horeyno dhinaca Somalilan anagoo jawaabta ACC usoo laabanayna bal Somalilan warka soo baxay ayay ku sheegtay in dagaal uu ka dhex qarxay ciidanka ku wada sugan Laascaanood saacadihii lasoo dhaafana dagaal uu dhex maray gaar ahaan habeenkii xalay ahaa ayay tilmaameen in ay si weyn ugu dagaalameen gudaha magaalada Laascaanood waxayna tilmaameen in taasi ay fursad weyn siin doonto ciidamada Somalilan oo disha ka eeganaya labada dhinac iyo khilaafkooda gacanka hadalka gaaray iyagoo weliba taa ku tilmaamay in ay noqon doonto mid u fududeysa Somalilan in ay ka baaqsato dagaal dhiigu ku daato oo toosoo la galo marka labada dhinac ay kala jabaan na ay noqon doonto in ay dib ugu laabtaan magaalada oo qaybtii markaas soo harta ay israaciyaan inkastoo afka ay ka dugayaan kooxaha warkaasi faafinaya oo ay tilmaameen in Somalilan ciidanka deegaanka ee soo hara ay ka dhignaan doonto inay wada hadal iyo sidoo kale wada xaajood arrintooda ku dhammayso halka ciidanka kale ee ka yimid deegaanada Puntlandna ay iska tagi doonaan marka khilaafku sii xoogaysto. Waxay sidoo kale taageerayaasha ciidanka militariga Somalilan saacadihii lasoo dhaafay ay warbaahinta u duubeen kuna baahiyeen in ciidanka ACC gaar ahaan ciidamada Cismaan Maxamuud iyo sidoo kale Ciise Maxamuud in qayb ka mid ah ay dib ugu laabatay aagga Garowe iyagoo weliba ka cabanaya arrinta la xiriirta fadhiga badan ee Laascaanood iyo inaan dagaal tooso aan la gelin oo ay ciidanku noqdeen kuwa fadhi badan ku ragaaday halka saraakiisha qaarkoodna arrintaasi goor hore ay ka jawaabeen. Jawaabta arrintaasi anagoo usoo laaban doona dhinaca ACC waxay Somalilan sheegtay in tani ay sidoo kale qayb ka qaadan doonto in la gaaro yoolka ay higsanayso oo ah in si wadajira gacanta loogu dhigo magaalada Laascaanood ee gobolka Sool militariguna ay soo afjaraan colaadihii iyo dhaqdhaqaaqyadii ka jiray muddo Laascaanood iyagoo si fudud u heli doona gacan ku haynta magaaladaasi. Waxay sidoo kale Somalilan dhinaca kale ay taageerayaasheeda iyo warbaahinteedaba qaarkood ay adeegsadeen in dhinaca kale maqnaanshaha garaadka guud ee beesha dhulbahanta uu yahay sidoo kale mid lafdhabar u noqonaya kala aragti doonaanta aaggaasi. Inkastoo Somalilan ay ku adkaysatay in arrintaasi iyo hoggaankiisiba uu bedelay General Morgan oo kasoo ruqaansaday Garowe balse uunan gaari doonin halkii uu gaarsiisnaa abaabulka garaad jaamac
oo isagu ay tilmaameen in xaalado caafimaad uu kaga maqan yahay aag. bal marka wararka Somaliland aan kasoo tagno aan u weecanno dhinaca ACC iyo sidoo kale jawaabaha aan ka raadinay ee arrintaasi. ACC ugu horeyn waxa ay beenisay in ciidan ka wada tirsan xoogagooda ay ku dagaalameen gudaha magaalada Laascaanood xalay, ilaa maantana dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo khilaaf uu soo kala dhex galay. sidoo kale ACC waxay arrintaasi ku tilmaantay in Somaliland militarigooda ay ku qarinayaan khilaafka ka dhex oogan beelaha habar jecel iyo habar ewal, oo iyagu markan isku marila habka loo jihaynayo dagaalkaas kadib markii geesiyadii dagaalka ee deegaanada Somaliland ee Garxajis ay la safteen dhinaca ACC taageereenna in ciidanka Somaliland ay ka baxaan aaggaasi. waxay sidoo kale ACC ay ku tilmaantay hadalkaasi sidoo kale mid lagu daboolayo in madaxweyne Muuse uu qaadi waayey dagaalka uu ballan qaaday, isla markaana uu ku qabsan waayey daqiiqado magaalada Laascaanood, xitaa haddii uu soo diray wiilkiisa u wakiishay arrimaha militariga oo uu iska xajinayo laba arrimood oo kale ah in uunan ku geeriyoon dagaalka kow, iyo sidoo kale in uu ku qanciyo wiilasha dhimanaya iyo kuwa dhaawacmaya waalidiintooda in xitaa asna wiilkiisii uu dagaalka ku jiro. sidoo kale xoogagga ACC taliskooda guud oo xiriir la sameynay waxaan wax ka weydiinay arrinta la xiriirta in khilaafka dhashay uu yahay mid ku salaysan xaaladda soo korortay ee magaalada ka jirta, iyo sidoo kale in dhaqaale la-aan ciidanka qaarkood ay dib uga laabteen Laascaanood. waxaana taliska guud ee ACC ay noo sheegeen in xoogagga harti iyo hiil harti intaba ay weli soo socdaan oo la sugayo 30 beelood in ka badan. saacadaha soo aadanna magaalada Garowe ay kasoo kici timi doonaan guutada ugu horeysa ee gurmadka degdega ah ee Meher Ismaaciil. waxaana sheegeen intaasi ay muujinayso in Maxamuud Saleymaan oo lafdhabar u ah dhaqdhaqaaqyada Puntland awoodda koowaadna ah uunan dib u laaban doonin, oo Ciise Cismaan iyo Cumarba ay safka hore fadhiyaan. sidoo kale xoogagga ACC waxaanu xog ka weydiinay arrinta la xiriirta in amniga magaalada uu gacanta ka baxay, isla markaana uu noqday meel ay ciidamadu dhex degan yihiin. waxa ayna arrintaasi beddelkeeda ku jawaabeen in ciidan gaar ah oo madani ah oo ah ciidan nabad sugid iyo booliis iskugu jira in la hubeeyey, lana qalabeeyey, tababarna la siiyey, loona xil saaray inay ka roondeeyaan habeenkii si loo sugo amniga dadka shacabka ee weli ku harsan magaalada gudaheeda. waxayse sheegeen in haddii meel ciidan iyo sidoo kale meel dagaal intaba ay tahay ay dhici karaan qaladaad, xitaa xoogagga deegaanka hore u deganaa qaladaad dhexdooda uu ka dhici karo, ciidanka gurmadka ku yimaada qalad uu ka imaan karo, balse arrintaasi oo idil ay tahay mid aan muuqanin marka la fiiriyo xoreynta deegaanka iyo sidoo kale qorshaha ay gurmad ahaanta ugu yimaadeen ciidamada harti ee buux dhaafiyey magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. sidoo kale waxa ay xaqiijiyeen in ay ku howlan yihiin sidii loo qaadi lahaa loona ambaqaadi lahaa howlgalka isku duubaridiisa iyo sidoo kale tillaabooyinka military. haddii aad sii fadhidaanba Laascaanood sidaas dadka ugu warrama, ayuu yidhi sarkaalka hadalkiisa aanu soo xiganay. waxaana intaa kusii daray in maalmaha ciidda cimrigeedu uu noqon doono ama cimriga joogitaanka ciidanka Somaliland uu noqonayo 7 maalin ee naga xigta maalmaha ciidda, taraawiixda oo loo tukaday iyo sidoo kale Ramadaanka oo la soo dhameeyana. dadka ACC dhammaantood maalmaha ka dambeeya ciid kale ayaa u bilaaban doonta, ayuu yidhi sarkaalkan. haddaba marka laga soo tago gulufka labada dhinac iyo heerka uu gaarsiisan yahay, bal iminka aan dib ugu laabanno arrin guud oo soo ifbaxday. waxaa saacadihii ugu dambeeyey dhinaca Somaliland iyo sidoo kale wartabinta qaar ka mid a dhalinyarada iyo sidoo kale xoogagga gaarka ah ee la abaabulay ay isticmaaleen in ay magaca ka bedeleen magaalada qadiimiga ee Laascaanood, waxayna ugu magac dareen magac muujinaya in xaaladda magaaladu ay gacanta ka baxday oo ay tahay meel khatar badan ay ka jirto. waxay adeegsadeen magaca Laas Qamro ama Laas Qamro oo micnaheedu uu yahay meel qamrada lagu cabo, isla markaana ah meel ay ka socdaan adeegsiyada iyo isticmaalka maanduuriyaasha, iyo sidoo kale in ay tahay meel aan amni iyo nabadgelyo ka jirin. haba ahaato meel aan nabadgelyo ka jirin oo meel dagaal oo madaafiic ay ku hoobanayso, balse Laas Qamro in loo bixiyo
ayay dadka qaarkood waxay ku tilmaameen inay tahay arrin abuureysa marin habaabin kale, waxaana dadka qaarkood ay ku tilmaameen in laascaanood muddo laas iyo caano oo la isku daray oo ah laba eray ay isku bedeli doonto laaska xorriyadda iyo midnimada Soomaaliya, laas midnimo. waxayna ku tilmaameen arrintaasi mid saacadaha soo aadan la gaari doono yoolkeeda. haddaba laascaanood ma laas qamarada Somalilan dhalinyaradeeda iyo sidoo kale xoogageedu ay baabuuninayaan ayay kusii nagaan doontaa, mase laas midnimo ayay isku bedeli doontaa oo caanaha waxaa loo bedeli doonaa meel lagu mideeyo bulshada Soomaaliyeed ee gobolada koonfurta, bariga, bartamaha iyo sidoo kale galbeedka iyo waqooyiga waddanka. muuqaalka sheer garee aragtidaada qaybta hoose noogu reeb dhambaalka wararka ku xirno weelkaaga ka dhigan nabadgelyo.